بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaanu wareysan doonaa oo maanta wareysi ka qaadi doonaa ku saabsan cilmiga beeraha iyo qaabka uu shaqeeyo iyo faa'iidooyinka uu leeyahay iyo caqabadaha haystaba Mr. Faisal Mohamed Uthman oo ah khabiir dhinaca beeraha oo wax badan ka soo shaqeeyay wax badan galiyay cilmiga beeraha marka waxaan inta badan wareysiganagu uu ku heerarsanaa doonaa cilmiga beeraha caqabadaha haysta waxyaabaha loo baahan yahay in laga hormariyo iyo qaababka loo marayo horumarintaas ayaan ku sameey doonaa Faisal Mohamed Uthman sida wada ogsoonahay wuxuu sameeyay research badan ama cilmi baaris badan oo ku sameeyay dhinaca beeraha oo guuleystay inta badan marka sidaan marka aan cilmigaas dadka ugu soo gudbino waxay noqotay inaan asagii aan wareysi la yeelano oon kala xiriirno cilmigii beeraha marka Faisal Mohamed Uthman waxaanu ku bilaabi doonaa Faisal Mohamed Uthman waa kuma bismillah saaxiibkay Abdallah waa Faisal Mohamed Uthman kulli waxaan u maleynayaa aqoon inaad ii leedahay mudana aan team wadaag xagga dhanka beeraha aan ahayn haddana hase ahaatee inaan iska bixiyo isfaahfaahiyo qudheedu waa wax meesha ku jira Faisal Mohamed Uthman waa nin shakhsi ku dhashay magaalada Kismaayo ku barbaaray dugsigiisa saaran ku soo qaatay isla magaalada Kismaayo jaamacadiina uu soo gudbay xamar ka dhameeyay jaamacadda faculty-ga agriculture jaamacadda Zamzam University 2018 ilaa iyo 18 ilaa haddana ku dhex jiro fildigii ama takhasuskii aan bartay welina gacanta ku hayo kuna shaqeynayo haddana 2021kiina waxaan bilaabay master on qaybtiisii hore hadda online ku qaatay haddana waa ii socdaa waa wadaa taariikhdeeda kooban waa intaas waa mahadsantahay Faisal Mohamed Uthman waxaad fikir guud naga siisaa maadaama intaas aad ku soo dhex jirtay beeraha oo aad research ka waday oo waliba qaybta cilmi baarista aad joogtay waxaad fikir guud naga siisaa qaabka uu u shaqeeyo beerashada ama beerashadu qaabka uu u shaqeyso adoo ku saleynaysid Soomaaliya ama gudaha Soomaaliya ama intii aad adiga aad koobaysay adoo ku saleynaysid qaabka uu shaqeeyaan baanu ka rabnaa in noo faahfaahiso dadka u gudbis beeruhu waa sector muhiim ah agriculture marka laga hadlayo waa sector very important oo ah dhammaan dadka dunida ku nool ama noolaha neefsado dhan waa shayga laf dhabarta oo ah noloshu inay socoto 10,000 years ago 10,000 oo sano ka hor agriculture civilization kiisa ama revolutionadiisa xilligaas ay bilowdeen revolutionist kacdoonada in agriculture la beero xilligaas ay bilowdeen ka hor xilligaas oo dadku ay ku tiirsanayeen hunting and gathering macnaha inay ugaadha iyo dishaan oo ugaarsadaan qaraabsigii iyo inay geedihii mirihii caadiga ka gurtaan deedna systemkii waa laga soo gudbay farmingkii bilowday systemkii farmingka ahaa oo beerihii in la tabcado dadkuna ay markaas oo qofka in uu asaga uu ku beerto gurigiisa hortiisa ama wax yar uu ku bilaabo la fahmay kadibna dunida way sii horumarisay ayadoo laga jaan qaadayo bilaawashadaas agriculture-ka ah waxaana loo fahmay door muhiim ah inuu yahay sababtoo ah haduusan geed jirin oxygen anagu ma heleen haduusan oxygen jirinna nolol ma jiri lahayn that's iskugu xiran yihiin marka
agriculture-ka iyo nolosheena caadiga ah ay muhiimna u tahay halkaasoo ka soo bilowday taariikh ahaan agriculture-ka maskaxda bini'aadinka mar walibana waxay sameynaysay horumar dhanka wax soo saarka ah si loo kaafiyo bulshada caalamka ku soo kordhaysa tiradooda iyo cuntada si la isugu maartay combaris garay ama la isugu bambadhigo ama la isugu jaangooyo mar walba la dhilitiro mar walba waxay imaanaysay in the agriculture-ka la hormariyo oo yahay section-ka kaliya ee lagu badbaadin karo noolaha nool ee jira ama xoolaha ahaadaan ama bini'aadin caadi ha ahaadaan intaas marka agriculture-ku si guud macluumaadkaas ayuu xambaarsan yahay waana muhiim annaga Soomaaliya markay sii tahayna waa noo muhiim sababtoo dad inta badan xilli aan production gaarnay waa jirtaa xilligii dawladda dhexe in beero badan la tabcay in karoobyo badan la hormariyay sida mooska mashaariic fara badan in dalka laga sameeyay oo tira badneed oo kamid ahaa sokortii mareeray wax badan oo mashaariic la sameeyay marka waxa la karaa dawladdii ugu badneed ee xoog gelisay dhanka agriculture waxay ahayd dawladdii dhexe ee wax kasta maanta jiro oo aan Soomaaliya markaan cabirayno ku cabirno oo dhan dawladdii xilligaas militariga jirtay ayaa waxaan qabatay marka sidaas darteed dawladdaas inta agriculture-ka hadda aan annaga naqaano ama Soomaaliya loo tiriyo la qabtay haduu yahay dhanka Moscow loo Soomaali ku cambaxday haday tahay in sokortii la soo saaro oo dhul badan qasab lagu beeray aqoon-yahanadii marka xilligaas oo beeraha soo baxay ama jaamacadihii ummadda ka soo baxay kadib dalku wuxuu galay burburkii dalku u galay kadib dalku 30 sano dib u noqday dadkii marka aqoonta lahaay oo capacity-ga xoogan ee beeraha lahaay ama ku shaqeeyay fildigan khibrad u lahaay intooda badan qof walba noloshiisa inuu la baxsay noqotay dibadda la wada aaday adiga 2010 wixii ka dambeeyay ay jaamacadaha haddana dib u bilaabeen in agriculture muhiimadda la saaro ama la furo hadda 10 sano ama 13 sano hadda aan ku jirno xoogaa waxaa moodaa in kacdoon dhanka beeraha uu jiro uuna xoogeysanayo dhankaasna marka waxaad ka dareemaysaa xoogaa inuu soo yara kacayo haddana iyadoo ay Soomaalidu inta badan xooga saaraan dadka hadda dhowr jeer dadka laba dhibaato haysato dhibaatana waa floods oo mar dadkii waa daad baqaaday beeri marna waxa imaanayo duufaano iyo dabaylo wax la yiraahdo abaarihi oo ayana qayb ka ah marka intaas marka waa cimiladii xooga adag laakiin annaga markaan fiirino waxaan beerano Soomaaliya badana open field-ga ama beeraha furan annaga xooga aan noole section-keena annaga beeraha sida laba gobol oo aad ugu xoogan macnaha waa 3 gobol gobolka Gedo gobolka Jubbaland ma santa Faisal gobolka Shabeellaha oo fikir guud naga siisay su'aalahaas qaybahaas waa